habeen wanaagsan saaxiibadan hawada ka saaxiibnay waa markaani wararkii warbixinadii ugu xiisay xamaasada badlahadahan oo kale Israac Media ka daawo jirteen waxa kamid ah heshiis dhaxmaray Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo durbo culeyskeeda laga dareemay filla Soomaaliya farmaajo ee Qirre iyo Axmed Madoobe dad caan oo isku jawaabay Soomaaliya halka laga haysto musharax Puntland oo maanta taariikh lama iloowana sameeyay kana talaasulay hankiisii qodobadaas iyo qodobo kale idin qirnaan ay ku daawo doontaan barnaamijkeena hadduu ebeedmo ila wareed lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijinaya in heshiis uu dhaxmaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame wararka ay wakaalada Israac Media ka helayso ayaa sheegaya in heshiiska uu qayb ka yahay xisbi ay ku midoobeen labada shakhsi taas oo dhabarjab ku ah dawladda hadda jirta madaxdeeda durba culeys siyaasadeed ayaa xisbigaani geliyay qorshaha loogu jiro xarunta dalka laga maamulo ee villa Soomaaliya tani waxaa la soo sheegayaa in ay Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ay ku doonayaan in ay doorashada 2020 gilgilaan waxaa xitaa doorashadaasi laga yaabaa in uu madaxweynaha u tartamo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qirre sida aan xogaha hoose ka helayno xisbi siyaasadeedkii hadduu si rasmi ah u soo banbaxo oo lagu dhawaaqo waxay dhawarjab ku tahay siyaasiyiin badan oo laga yaabo in ay labadan siyaasi ku daba lifaaqan yihiin haykalka dawladnimo ayaa tiir ama udub dhaxaad u ah kala xidinta garsoorka xumida amni la'aanta iyo isku dhaca bulshada walaalaha ah tan iyo markii ay dhacday dawladii kacaanka ma jirin dawlad quwad leh oo Soomaaliya ka hana qaaday marka loo eego adkeynta amniga dhismaha ciidamada isjecelka dadweynaha iyo nabadii la haystay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay qaaday talaabo ah in caalamka ay u sheegeen in Soomaaliya tahay mid madax bannaan oo siyaasadeeda gudaha iyo maslaxadeeda garanayso si gaar ah wadamada dariska ay kala hadleen arrimahaasi waa hubanti inay jiraan qaladaad ay gashay dawladdaasi haddana waxaa ka xoog badneed wanaaga ay Soomaaliya gaarsiisay magacii ee caalamka ku lahayd iyo maqaamkii laga joogay dalal hadda isbidayo awood oo aan ka magac sareynay musharax Sadiiq Maxamed Eenow ayaa maanta shir jiraad uu ku qabtay magaalada Garowe wuxuu uu ku dhawaaqay in hankiisa madaxweynaha Puntland inuu u tartamo waxa Dr. Sadiiq uu sheegay in badbaadinta Puntland uu garwaaqsaday inuu ka tanaasulo maadaama ay dhibaato badan ka jirto meelo kala duwan musharax ayuu u ahaa madaxweynaha Puntland balse 3 cisho ka hor xilli ay doorashadka ayuu ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay Dr. Eenow wasiir ayuu mar ka soo noqday Puntland Sadiiq Eenow waxa uu sheegay in badbaadinta dadka ku dhaqan gobolka Sool iyo Sanaag uu u tanaasulay